بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبكي نعم عارفة كسور هذا 10 كواد برشادة MS Word 10 كواد وحيلا كبران دونكو how to open MS Word ولو سوغاوي مايكروسوفت وورد قابك أد أفور لهاد MS Word أما أسوك عن لهاد نمبر الله waxaan baranaynaa navigating the MS Word interface qaybaha kore uu ka kooban yahay new file sidaad u furi lahayd open file kuu save garaysanaa sidaad usoo furi lahayd save fileka aad isticmaalayso inaad save garayso qaabka u save garan lahayd iyo close file sida loo xiri lahaa okay aan ku horumarno MS Word sida loo soo furo ama loo soo kiciyo waxaan tegaynaa meeshan ay ku qoran tahay search left click ayaad leedahay kadib waxaad qoraysaa Word ayaad qoraysaa keyboardkaaga W haddii aad taabato ama Word aad qorto labaduba uu kuu soo qabanaya kadib waa kana uu kuu soo kacaya open ayaad leedahay markaad open dhahdo waxaa kuu soo bixi doono blank document iyo sidoo kale template oo diyaarsan kaliya haddii mid kamid ah aad taabato templateyadan wax baa ka bedelaysaa laakiin midkaan mid cusub waaye midka cusub ayaan dooranayna blank document ay u qoran tahay qaabka koowaad ee MS Word loo soo furo waa ka qaabka labaad wuxuu noqonayaa right click inaad dhahdo ayaa waxaa samayn kartaa new ayaa dooranaysaa kadib waxaa leedahay Microsoft Word document haddii aad doonto magacaad ayaad ku qoranaysaa kadib keyboardkaada enter leedahay and then laba mar ayaad click siinaysaa left click ayaana laba mar taabanaysaa kadib waa ka MS Word uu ku furmayaa waxaa ku xigo aan baranayno ayaa ah navigating the MS Word interface oo loola jeedo qaybaha uu korayso waxaa la dhahaa quick access toolbar ayaa la dhahaa qaybtan kore quick access toolbar ayaa la dhahaa magaceeda qaybtan xigto waxaa la tabs ayaa la dhahaa tab kasta markaad furto waxaad arki kartaa in markaas tusaale home haddii aan furo waxaan arkayaa inay isoo baxayaan qaybahan waxaa la dhahaa marka groups ayaa la dhahaa tab kasta markaa furto wuxuu leeyahay groups ayuu leeyahay okay qaybtan kore quick access toolbar qaybta xigto tabs tabka markaa furto waxa soo baxayna waxaa la dhahaa groups ayaa la dhahaa okay qaybtan hoose magaceeda waxaa la dhahaa status bar ayaa la dhahaa haddii aan taabto status bar left click aan siiyo waxyaalaha uu caawin doono waxaa kamid ah inuu ii sheegi doono inta page ii furan inta words ii qoran character kulli uu ku tirin doona okay qaybta kale qaybtan dhinacan waxaa la dhahaa view tab ayaa la dhahaa saddex qayb ay ka kooban tahay read mode qaybtan markaa ku dhufato qaabkaas ayuu isku bedeli doonaa read mode ayaa la dhahaa qaybtan xigto waa print layout qaybtan xigto waxaa la dhahaa web layout oo markaad ku dhufato noocaas ayuu isku bedeli doonaa okay qaybta ugu dambeyso navigate file waa qaybtan waxaa la dhahaa zoom bar ayaa la dhahaa zoom bar oo in shaashada aad weyneyso markaa weyneyn rabto plus ayaa taaban kartaa adoo left click ku celcelinayso haddii markaa yareynaysidna minusta ayaad ku celcelinaysaa haddii aad marka rabtana waxaa qabanaysaa falartan saas u jiidaysaa waa weyneynaysaa waana yareynaysaa saas u celin kartaa haddii saa rabto ayaad ku samayn kartaa okay qaybtan xigto qaybtan kore waa close halkaad ka xiri lahayd haddii aad u baahan tahay inaad ku samayso maximize oo aad hal dhinac kaliya shaashada aad ka dhigto waxaad dooran kartaa okay qaybta xigtana waa minimize kaliya waa taabanaysaa markaad taabato oo aad ku dhufato toos uma xirmaayo faylkaaga qaybtan dambe ayuu kuu dhigi doonaa okay waxaan baranay sida loo soo furo MS Word waxaan kaloo baranay navigating the MS Word interface number 3 waxaan baranaynaa new file qaybka loo furo tusaale ahaan file ayaa ii furan mid cusub u baahday inaan furo anoo markaa halkan joogo waxaan aadayaa file kadib waxaan leeyahay new then blank document mid cusub ayaa ii furmay waa ka okay wadamada ka gaaban ayaa jirto oo la isticmaali karo aad isticmaali karto macnaha saad u furto file cusub oo waxaad isticmaalaysaa shortcut-ka ah
control n control n keyboardka haddii aad taabato control aa qabanaysaa adigoo controlka hayo ayaa waxaad dooranaysaa n kadib waa ka si automatic waxaa kuu furmaayo file cusub ayaa ku furmi doona good marka new file open fileka waxaa loola jeedaa file horey aad markaas u isticmaashay ayaad rabto adoo halkan joogto inaad soo furto waxaan tegaynaa file kadib waxaan leenahay open and then fileka aad rabto ayaad halkan kasoo dooranaysaa si toos ayuu kugu furmaya okay shortcut ayuu leeyahay shortcutkiisana waxaa waaye waa control o waxaa loo soo gaabiyey open ayaa lasoo gaabiyey control o hadda haddii control aan qabto kadib o aan taabto wuxuu si toos ii geenayaa halkii markaa ay fileska ay yaaleen okay waxaa ku xigo aan baranayno waa see loo save gareeyaa file aan isticmaalaysaa inaad save gareysaa rabtaa waxaad tegaysaa file kadib waxaad leedahay save markaa ku dhufato optionadan ayuu ku siinayaa halkee dhigaysa ayuu ku leeyahay desktopka haddii aad doorato si toos wuxuu ku geynayaa desktopka halkan waxaad ku qori doontaa magaca documentiga aad rabto kadib save ayaad leedahay dhowdii marka waxaad ka heli doontaa filekaaga waxaad ka heli doontaa desktopka okay save waxay leedahay shortcut oo waxaa loo soo gaabiyaa control s waxaa loo soo gaabiyay save control aa qabanaysaa adigoo controlka hayo ayaa haddana s taabanaysaa waa kaas si toos wuxuu ku geenayaa halkii hadday aan ka dooranayn desktopka ayuu ku geenayaa good midka ugu dambeeyo caawa cashirkeena waa close filekan qaabka u xirayaa filekan ifrun inaan xir ayaan u baahanahay halkan intaan taabto fileku waan xiri karaa oo halkan closeka ayaan ka xiri karaa waxaan kaloo ka xiri karaa file intaan tago ayaan waxaan ku dhufanayaa close ayaan leeyahay saasna waan ka xiri karaa wuxuu leeyahay save garey ama iskale okay waxaan kaloo ka xiri karaa shortcut oo ah alta f4 keyboardkaaga alta ayaad qabanaysaa kabacdi alta f4 ayaan rabaa alta ayaad qabanaysaa kabacdi f4 ayaad dooranaysaa toos marka uu xiri doonaa haddii aad save gareyso save garey uu ku leeyahay save ama don't save cancel adiga ama dooran doonto cashirkeena koowaad caawa halkaas ayuu inoogu joogaya insha allah marka haddii aad nagu cusubtahay noo soo biir cashiro badan ayaa soo socdo wixii su-aal aad qabto waxaan soo dhigi doonaa numberka group discussion whatsappka ayaan description soo gelin doonaa halkaas ayaad nagala soo xiriiraysaa wixii su-aal aad qabto wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu